Soomaaliya waxaynu xad kala leenahay maamul goboleedka Puntland waxaanu u haynaa Puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi kamid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhaxeeya falal nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dawladda Soomaaliland ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqan-dhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska Afrika hase yeeshee jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska Afrika iyo caalamkaba waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda geeska Afrika cidda Soomaaliland iska ilatirtaa waxay xagaldaacinaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beegsanayo geeska Afrika waxayna si taban u saameyn doontaa horumarka iyo iskaashiga Soomaaliland taagan tahay waqtigii bulshada caalamku dhex gali lahayd dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dawladda Turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay kaligeed ina dhexaadiso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wada hadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya waxa si toos ah noola soo xiriiray dawladda Sweden iyo dawladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay martigeliso Soomaaliland way aqbashay labada martiqaadba waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhameeyo wada hadal iyo nabadgelyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama Soomaaliland ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha